kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa Somali Press TV qodobada ugu waaweyn ee barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono madaxweyne Farmaajo oo ku baaqay in garab istaag loo muujiyo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama ay ku guuldareysatay wax ka qabashada dhibaatada ay wajahayaan shacabka Soomaaliyeed. barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa qodobada kale ee barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono ciidamadii ugu badnaa oo ka soo jeeda beesha Mursade oo diyaarad looga qaaday caawa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxayna gaareen magaalada Guruceel ee gobolka Galgaduud. barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa xogta ku aadan ujeedka ay ciidamadaasi u gaareen magaalada Guruceel. qodobada kale ee barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono shirka golaha wada tashiga qaran oo la soo gabagabeeyay isla markaana laga soo saaray qodobo ay aad ugu faraxday Puntland. barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa qodobadaasi. ciidamo ka tirsan militariga Somaliland waxay la wareegeen gacan ku haynta degmada Boocamo ee gobolka Sool iyadoona xiisad ay ka taagan tahay aaga Boocame kadib markii madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo jooga Muqdisho uu faray in ciidamada Puntland ay jawaab degdeg ah ay ka bixiyaan qabsashada Somaliland ee Boocamo. barnaamij wareedkeena ayaan qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso leh aan ku faahfaahin doonaa. balse haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelkeena waxaan kaa codsanayaa inaad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinada xiisaha leh ee halkan aan soo gelino. mahadsanidin dhammaantiin. aan ku bilaabo barnaamij wareedkeena. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay xubnaha xisbigiisa Nabad iyo Nolol ka mid ah iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed guud ahaanba inay garab istaag u muujiyaan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u muuqata mid ku guuldareysatay wax ka qabashada dhibaatada ka jirta guud ahaan dalka. madaxweyne Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in garab istaag ay u muujiyaan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama ay ku hungowday wax ka qabashada waxyaabihii ay ballan qaaday tan iyo markii uu madaxweynaha ku jiray ololaha doorashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaana sheegay in xisbigiisa xubnaha ka midka ah ay qayb ka noqon doonaan garab istaaga dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cali Yara Cali oo sidoo kale ka mid ah xubnaha Nabad iyo Nolol ayaa maanta Muqdisho wuxuu kaga dhawaaqay in hadda kadib ayna jiri doonin wax la yiraahdo dimo jadiid iyo sidoo kale Nabad iyo Nolol dalkana uu ku jiro marxalad aan dawladda lagu fiirsan karin oo ay waajib tahay in xisbiyada kale ee dalka ka jira ay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku taageeraan. Cali Yare ayaana ugu baaqay shacabka inay u midoobaan sidii dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku garab siin lahaayeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo ay dawladdu furtay iyadoo aan u diyaar garoobin iyo sidoo kale wax ka qabashada dhibaatada ka dhalatay xaaladda abaareed ee dalka ka jirta. Cali Yare Cali ayaa sidoo kale sheegay in xubnaha Nabad iyo Nolol ee dal iyo dibad jooga ay hadda diyaar u yihiin in ay caawiyaan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana maalmaha soo aadan la arki doono dadaalkooda ku aadan garab istaaga dawladdu uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. wuxuuna sheegay in xubnaha xisbiga ay hadda iska aruurinayaan lacago fara badan oo ay ugu talagaleen wax ka qabashada dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay isgooska Soobe ee Muqdisho oo ay Al-Shabaab ku xasuuqeen dad badan oo shacab ah oo aan waxba galabsan. qodob wareedka kale ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahinno diyaarada sida ciidamo aad u fara badnaa oo ka tirsanaa militariga Soomaaliya balse qaab qabiil u abaabulnaa ayaa caawa ka anbabaxay garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ee Muqdisho iyagoona gaaray gobolada dhexe ee Soomaaliya. ciidamadani tirada badan ayaa qayb ka noqon doono howlgal Al-Shabaab looga saarayo degmada Ceelbuur iyo deegaanka Ceel Hareeri iyo Wabxo ee gobolka Galgaduud. waxaana Muqdisho ka sagootiyay ciidankani wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Macalin waxaana hore u sii raacay wasiirkii hore ee warfaafinta ee dawladdii Xasan Sheekh
xildhibaan Mustaf Dhuxulow iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan. waxaan maanta gaarnay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. ujeedka safarkeenna aan halkan ku tagnay ayaa ah in aan dib u xureyno deegaanada Ceelbuur iyo sidoo kale Galhareeri. ciidamadani ayaana dhawaan u ruqaansan doono dib u xureynta deegaanadooda, waxaana rajo ka qabnaa in guul ay ku soo dhammaan doonto howlgallada aan ku dhawaaqay, ayuu yidhi xildhibaan Mustaf Dhuxulow. magaalada Muqdisho ayaa horey waxaa looga qaaday diyaarado siday ciidamadii ugu tirada badnaa oo ay dowladda Soomaaliya u dirtay gobollada dhexe ee dalka, balse ciidamadan ayaa u muuqda kuwo u abaabulan hab qabiil oo aysan suuragal ahayn inay amarro iska qaataan saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan. qodob wareedka kale ee barnaamij wareedkeenna ku jira haddii aan sii faahfaahinno, caawa waxay xiisad ka taagan tahay degmada Boocame ee gobolka Sool kadib markii maanta ciidamo ka tirsanaa militariga Somaliland ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Boocame ee gobolkaasi, kadib markii saacadihii la soo dhaafay ee sidoo kale isaga baxeen ciidamada Puntland. ciidamada militariga Somaliland oo watay gaadiid dagaal oo aad u fara badan ayaa gudaha u galay degmadaasi, kuwaas oo saldhig ka samaystay halkii ay markii hore ay degnaayeen ciidamada dowlad goboleedka Puntland. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo Muqdisho jooga ayaa waxa uu faray talisyada kala duwan ee ciidamada Puntland in jawaab degdeg ah ay ka bixiyaan dharbaaxada maamulkiisa ka qabsatay degmada Boocame ee gobolka Sool kadib markii ciidamada militariga Somaliland oo aad u fara badan ay la wareegeen degmadaasi. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaana amar ku bixiyey in la gaaro degmada oo ay ciidamada Somaliland ay la wareegeen. waxaa hadda Garowe ka socda abaabulkii ugu dambeeyey oo ay wadaan saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Puntland, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee Puntland. waxaa laga cabsi qabaa in caawa saqbarkii ay degmada Boocame ay gasho marxalad ay sanadihii la soo dhaafay ayna wajihin, maadaama Puntland ay hadda ay wado is-aruursigii ugu dambeeyey oo dhinaca ciidanka iyo zaadka iyo sidoo kale hubkeedii ugu dambeysana Garowe ay ka qaadayso. waa xaalad kale oo ay gashay gobolka Sool iyo sidoo kale degmada Boocame ee gobolkaasi, maadaama Puntland ay degmadani u qorsheynaysay inay ka dhacaan doorashooyinka qofka iyo codka ah ee deegaanadaasi ay ka hirgelinayso. sidoo kale degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ay waqti dheer isku hayeen maamulada Somaliland iyo Puntland, mana jiro muuqaf adag oo ay labada dhinac ay weli ay ka qaateen. guud ahaan saaxiibayaal waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa barnaamij wareedkeennii Somali Press TV aad kala socoteen ee nabadgelyo saaxiibayaal.